daawadaha qiimaha badan oo ku soo dhawow muuqaalka xiga ee Toosane Technical. Muuqaalkan aan TikTok ka soo duubay waxa iga imaaday su'aalo aad u tiro badan oo dadkii kala duwan ay ku cabanayaan. Inkastoo intooda badan su'aalahaasi aan ku xaliyay qayb khaas ah oo qof walba iyo qaaskiisa aan ugu xaliyay, su'aashan waxaan jeclaystay inaan idin la wadaago oo guud ahaan aan u sharxo dadka markaa daawanaya channelka. Su'aashaasoo ah sidee baan ku ogaan karaa qofka ila isticmaalaya TikTok-gayga? sidaan ognahay application-ka TikTok wuxuu leeyahay username iyo password. Waxa laga yaabaa mararka qaar inaad telefoon kale aad ka kiciso username-kaaga iyo password-ka TikTok-ga aad ugu soo tagto ama telefoonka hore aad isaga gaday aad TikTok-gaaga ugu tagto. Waxa laga yaabaa marka in TikTok-gaaga si qaldan loo adeegsado ama waxyaabo private ku ahaa si qaldan loo adeegsado. Si aad u ogaato in lagu isticmaalayo TikTok-gaaga in kale ayaan rabaa muuqaalkan inaan kugu tuso. Haddii se aad ogaato qofka kula isticmaalaya TikTok-ga awood ma u leedahay inaad TikTok-gaaga telefoonkiisa aad ka bixiso adigoo telefonkaaga haysto? Haa, waad awoodaa oo telefonkaaga adigoo haysto ayaa TikTok-gaaga ka deleedi kartaa qofka kale telefoonkiisa. Nasiib xumo ma ogaan kartid qofka TikTok-ga kula adeegsanaya magaciisa saddexan iyo meesha uu joogo. Balse waxaad awood u leedahay inaad ogaato telefoonka laga isticmaalayo noociisa oo kaliya, waxaadna awood u leedahay markaasi inaad iska deleedo. Fadlan yaan mar badan kugu daalinin aan ku tuso sida aad u ogaan lahayd qofka kula isticmaalaya TikTok-gaaga aadna isaga deleedi lahayd TikTok-gaaga qofka markaa telefoonkiisa ka isticmaalayo. Fadlan soo dhawow. Marka hore waxaad u baahan tahay inaad soo furto application-kaaga TikTok-ga. Marka aad TikTok-gaaga soo furto waxaad tagaysaa qaybta hoose ee ku qoran tahay profile, kadib waxaad tagaysaa qaybta sare ee gacantaada midig ee saddexda ilig aad taabanaysaa. Kadibna waxaad xulinaysaa halka ay ku qoran tahay security and login. Marka aad taabato security and login waxa ujeedaa meeshan waxa ku qoran ilaa 5 qodob oo security alert, manage device, manage app permission, two-step verification iyo safe login info. Waxaad ka xulinaysaa halka ay ku qoran tahay manage device oo qalabkaaga meesha markaasi aad ka manage garay lahayd. Marka aad taabato halkan waxa ku soo baxayo telefoonada ay ka kacsan yihiin application-kaaga ama account-kaaga TikTok-ga ah. Sida meeshan ujeedo TikTok-gayga aniga qof kale telefoonkiisa uu ka kacsan yahay malaha oo telefoonkan Samsung Galaxy J4-ka ayuu markaasi ka kacsan yahay oo telefoonkayga ah. Sidoo kale waxaad ujeedaa TikTok-gaaga haddii telefoon kale oo dheeraad ah ama telefoon kale oo telefoonkaaga aan ahayn uu ka kacsan yahay wuxuu halkan kugu soo bandhigayaa telefoonka uu ka kacsan yahay nooca uu yahay. Sidoo kale wuxuu ku siinayaa fursad ah in aad ka deleedi karto qofka telefoonkiisa uu ka kacsan yahay oo halkan waxa ku qoran calaamada delete-ka. Marka aad taabato wuxuu ku leeyahay ma ka remove garaynaa device-ka kale uu ka kacsan yahay application-kan TikTok-ga. Haddii aad dhahdo remove waxaa bixi doono qofka uu telefoonkiisa ka kacsan yahay account-kaaga TikTok-ga ah. oo hadda aniga uma baahni in aan delete gareeyo sababtoo ah waa isla telefoonkayga. Waxaan rajaynayaa 100% inaad muuqaalkan ka faa'iiday. Fadlan hadda channelka cusub taas subscribe saar lana wadaag asxaabta muuqaalka u share garay. Haddii aad ka heshay muuqaalkan like saar inta aad ku kulmayno muuqaalka xigo waxaan idinkaga tagayaa sida nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.